saaxiibada aan baraha bulshada ku midooniyo waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe ina soo dhahdaan barta YouTube-ka sidoo kalena follow aan soo dhahdaan barta Facebook-ga mahadsanidin dhamaantiin. Ururka Hamas ee Falastiiniyiinta ayaa baaq u diray Iran inay ka fogaato beegsiga dalalka deriska iyagoo dhinac kale ku nuuxnuuxsaday xaqa ay Jamhuuriyadda Islaamiga u leedahay iska difaacida weerarada gardarrada ee Israa'iil iyo Mareykanka. Ururka Hamas ayaa baaq uu soo saaray waxa uu ku sheegay iyagoo xoog saaraya xaqa ay Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ay u leedahay inay iska difaacdo ama ay ka jawaabto weerarada gardarrada hab kasta oo ay heli karto iyagoo lagu saleynayo xeerarka caalamiga. Waxa uu dhaqdhaqaaqa ugu baaqayaa walaalahood Iran inay ka fogaadaan inay beegsadaan dalalka deriska ah. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay kula jiraan Iran, Tehran waxa ay bartilmaameedsatay dalal badan oo gobolka iyo saldhigyada Mareykanka ee dalalkan. Saacadihii la soo dhaafay wasaaradda difaaca Sacuudiga ayaa sheegtay inay ka hortagtay oo ay burburisay diyaarad daroon oo hawadeeda soo gashay. Sidoo kale waxaa magaalada Dubai lagu qabtay gantaal saacadihii la soo dhaafay waxaana qaybo ka mid ah uu ku dhacay dhismo ku yaala bartamaha magaalada. Ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ayaa sheegay inay qaadeen mowjadihii 48aad ee weerarada ka dhanka Israa'iil sida ay ku warantay warbaahinta dowladda Iran. Wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ayaa sheegtay in weeraradan ay isku mar la qaadeen kooxaha Hezbollah ee dalka Lubnaan. Wakaaladda wararka ee Fars News Agency ayaa sheegtay in kaabayaasha shidaalka ee jasiiradda Khan oo ay ku yeelaan xarumaha istiraatiijiga ee shidaalka Iran Khaliijka aysan waxyeello soo gaarin kadib markii duqeymo ay ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka Jimcihii oo lagu bartilmaameedsaday goobo militari oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in gabi ahaanba la burburiyay. Wakaaladda wararka Iran ayaa sheegtay in Sabtida maanta iyadoo soo xiganaysa ilo goobeed in 15 qarax laga maqlay inta uu socdo weerarkan laakiin wax kaabayaal shidaalo oo waxyeello soo gaaraan ma jiraan ayuu yiri. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Faris, cadow waxa uu isku dayay inuu waxyeello gaarsiiyo difaaca militariga saldhigga ciidanka badda ee Joshan, minaaradda laga hago garoonka diyaaradaha iyo hangarka helikobtarka ee shirkadda Continental Shelf Oil Company. Iran ayaa qaaday tallaabo istiraatiiji oo ay ku soo jiidanayso in uu Shiinaha qaado go'aan uu ku difaacayo Iran kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka uu sheegay CNN-ta in ay ogolaanayaan maraakiibta shidaalka in ay tiro kooban ka gudbaan marinka Hormuz balse shuruudda ay tahay inay shidaalka ku soo iibsadaan kuna wareejiyaan lacagta Shiinaha ee Yang. Dhinaca kale, Iiraaniyiinta ayaa la yimid farsamooyin kala wareejinta iyo kala iibsiga shidaalka ayaa ku dhacda lacagta doolarka Mareykanka waxaana lagu sheegaa lacagta doolarka waxaa xoogeeda dhisaya in ay tahay lacagta kaliya ee dalalka caalamka ay ku kala iibsadaan shidaalka. Iibinta nidaamkan loo yaqaano petrodollarka waxa uu Mareykanka khad cas u arkaa in lacag kale lagu kala iibsado shidaalka halka Shiinaha uu muddo dheer ku haminayay lacagta Shiinaha inay noqoto midda shidaalka lagu kala iibsado taa oo siin karta awood dhaqaale. Iran waxa ay ogtahay in Shiinaha uu yahay iibsadaha ugu weyn ee tamarta bariga dhexe isla markaana uu doonayo inuu kordhiyo isticmaalka Yang. Sidaa darteedna soo jiidinta noocaana waxa ay kordhin kartaa qaabka Iran ay ku soo jiidanayso Shiinaha si uu u yeesho dano dhaqaale oo toos ah oo ku qasbaya in uu difaaco Iran.